السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلي مقال كيغا channel علم السيدي. ما انتو حنقادن إنا مادة حسابتا كلاس كفورم 2 chapter كواد 10 كيسلوات يعني كقادن دونا هروح أسو قادناي أسو شكني 10 كينا هروح أسو شكني numbers كي قابه هذا شرحات ورا كفوض حنا أجرو ريلي وحنكسو هذا لني ريشن نمبر وحلي رادو مركا هذا وحنتوسو قادن إنا نمبر ريشن نمبر وحيا قيحتان كسوري أسو قادناي حدي أذن hore u soo arkeen cashirka linkkiisa ayaan qaybta hoose ku dhigayaa soo daawo si aad wax badan ugu soo faa'iido ama aad u soo fahamto kadibna cashirkan toos u bilaabo haddii aad hore u soo qaadataan cashirkan waad la socon kartaa maanta example 1 waxaa lagu qoray tusaalaha koowaad 1.1 waxaa lagu wadaa chapterka koowaad tusaalihiisa koowaad right waxaa lagu dhahaa qorta waxaa lagu sii 30/45 soddon loos dhigay 45 in simplest form habka ugu gaaban u qor adoo isu yareyn u sameynaa ama fududeynaa solution aan dhahanay tirada dib ayaan soo qornay markaan soo qornay kadib waxaan dhahaynaa soddon loos dhigay 45 ay haysataa marka hore waxaa raadinayaa soddon isku dhufasho waxa ay ka timaado ilaa waa composite number walba isku dhufasho ka imaado waxaa lahaa composite number tiro isku dhis waa laba tiro isku soo dhuftay ayuu ka imaaday marka soddon sida aad garanayso caadiyan waxay ka imaadaa loo furfuri karaa qaybta professor waxay noqon doontaa 6 lagu dhuftay 5 ayay noqonaysaa marka ugu horeyso si lamid ah qaybta hoosena sidaas ku sameey 45 waxay ka imaaday 45 waxay ka imaaday 9 lagu dhiftay waxay ka imaaday 9 lagu dhiftay 5 marka intaas aad joogto halkaas aan marayso habka ugu sahlan aan u marayso wali waa sii furfuraysaa marka waxay la siiminta dib u soo qortirees waxa dhahaysaa marka 6 lafteeda si furfur 5 ma furfurmaysa laakiin 6 way furfurmaysaa xagga kor marka joogno 6 waxay ka imaaday 3 lagu dhiftay 2 ayay ka imaaday 3 lagu dhiftay 2 waxay u taagan tahay 6 shantii waa soo celinaysaa haddana mar kale lagu dhiftay 5 qaybta kor sidaas ay noqonaysaa xagga hoose shanta dambe oo xagga gadaal ku qoran ma furfurmayso laakiin 9 way furfurmaysaa waxay ka imaaday 3 lagu dhiftay 3 ayay ka imaaday kadib waxaad soo celinaysaa shantii halka markaad joogto kor hoose isku fiir wixii isleh isku jar haddii aan dhahno waxa isleh 3 iyo 3 way isleeyihiin oo isla baxayaan si lamida 5 iyo 5 way isleeyihiin oo isla baxayaan haddii aan isku jarno barta waxa inaga soo hari doono 2 la hoos dhigay 3 halka jawaabteena waxay noqon doontaa 2 la hoos dhigay 3 answerka buuga kugu qoran waa sidaas waxaad ku samaysay reducing ayaa ku samaysay isku yareen ayaa ku samaysay adoo isticmaalay habkii waxaad isticmaashay by factor tirada inaad istirkeeda ka saarto asalka ay ka imaaday aad u celiso ugu dambeyn sidaas ayaan u samaysay halka waxaan uga baxnay example 1.0 waxaan ka baxnay tusaalaha koowaad 1.2 waxaan ka baxnay 1 waxaan hore u sii gelaynaa example keena labaad tusaale labaad waxaa lagu dhahay isla mid ah example 2 ayaan caadi u qoraynaa example labaad waxaa lagu qoray oo lagu diray example keena labaad waa 1.2 waxaa lagu dhahay isna lagu diray waan qoraynaa caadi aan qoraynaa right 24 waxaa lagu dhahay right 24 over 36 24 loos dhigay 36 waxaa u qortaa waxaa u qortaa simplest form habka ugu fudud in simplest form s form waxaan soo gaabsan karaa simplest form ayaa ula jeedaa waa fahmi kartaa kulli waa erey halka ku qoran in s form habka ugu gaaban u qor ko waxaan dhahayaa solution marka waxaan dhahayaa solution tiradii dib ayaan soo qoranayaa waxaan ka bilaabayaa 24 la hoos dhigay caadi u soo guuri 36 marka intaas sameeyo aan inta tiraahdo kadib waxaad sameyn doontaa waad dhahaysaa afan waxa laga yaabaa halkan inay hoos kugu tahay aad u jeedin marka aan inta ku qoro waxaan dhahayaa 24 la hoos dhigay 36 marka tiradaas u qoro kadib waxaan dhahayaa 24 asal ahaan waxay ka imaaday habka ugu sahlan ka bilaabo 24 waxay ka soo jeedaa ataqaanaa si caadiyan 3 lagu dhiftay 8 ama 8 hormar ama 3 hormar waa isla mid marka waxaan dhahayaa 8 lagu dhiftay waxaan dhahayaa 3 xagga hoose haddii aan aado si lamid ah waxay ka soo jeedaa 36 waxay ka soo jeedaa 6 lagu dhiftay 6 waa dhigi karaa waa 6 times 6 ama 6 lagu dhiftay 6 ay ka soo jeedaa si furfur numberkan uu furfurmaya 8 waxay ka soo jeedaa 2 lagu dhiftay 2
lagu dhiftay laba ay kasoo jeedaa ilaa 8 waa taqaana laba lagu dhifo 4 4 lagu sii dhifo waxay noqon doontaa 8 lagu sii dhiftay noqon doontaa kadib maxaa lagu dhifanayaa 3 inta sareeya sidaas uu noqon doonaa xag hoos soo aad 6 walba uu sarifmaysaa waxay noqon doontaa laba lagu dhiftay 3 lixda kalena si lamid ay noqon doontaa waxay noqon doontaa laba lagu dhiftay 3 ay noqon doontaa halka marka joogto labadan iyo labadan waa isku jaraysaa horta isla baxayaan labadan iyo labadan oo isla baxayaan wixii isla bixi saddexdan iyo saddexdan oo isla baxayaan halka waxa kaga soo hari doona laba la hoos dhigay 3 ayaa kaga soo hari doonta laba la hoos dhigay 3 sidaas ayaadna ku fududeysay tiradii oo waxaad u qortay habkii ugu fududaa ayaad u qortay halka waxa uu gudbaynaa tusaalaheena labaad jawaabtiisana waa ka jawaabtiisana waa ka waxaan si aadaynaa oo u gudbaynaa tusaalaheena saddexaad waxaan galeynaa tusaalaheena saddexaad dhammaan marka xisaabta ka shaqeyn tusaalaha saddexaad sabuurdaynu masaxanaynaa kadib ayaan hore u sii socon doonaa waxaan ku jirnaa example-kii saddexaad ee chapter 1 1 iyo 2 waan ka soo shaqeynay waxaa lagu dhahay represent ku muuji waxaad muujinaysaa 3/4 3 loo siga 4 on a number line waxaad ku muujinaysaa xariiqda tirooyinka ku muuji solution aan dhahnay 3 loo siga 4 ayaan marka hore qoraynaa kan sidii kii hore oo kale ma ku sameynayno reduce ma ku sameynayno isu yareen naguma baahna maxaa yeelay asaga wuxuu taagayaa meesha ugu hooseysay kor hoos wax ka dhaxeeya ma jiro sidaa daraadeed wuxuu u qorayaa hadeer improper fraction iyo u qorayaa jajab maqoomane waxaan ka dhigaynaa mixed number tiro dhafan ayaan ka dhigaynaa sidee ugu dhigaynaa tiro dhafan markii la sameynayo laga sameynayo jajab maqoomana hooseeya ayaa waxa ka dhigaysaa horgal ama banaanka dhigaysaa wixii qaybiye ayaa ka dhigaysaa sareeyahan waxa ka dhigaysaa la qaybshe fraction ha waxa u qoraysaa qayb ahaan waxa u bedelaynaa laba tiro qaybiye iyo la qaybshe hooseeyaha wuxuu noqon doonaa qaybiye sareeyahan wuxuu noqon doonaa la qaybshe waa qaybinna caadi oo qaybin waxaan dhinaca 4 loo qaybiye 3 waxa ugu dhow markaas min hal lagu dhiftay 3 waa iska 3 waan kala jaraynaa jawaabtu waxay noqon doontaa halka soo haray ee ugu dambeeya haraaga ah waxaynu ka dhiganaynaa sareeye 3 marka hore 3 ay ahayd waan soo celinaynaa 3 ku soo celinaynaa halka jawaab ahaan u soo baxay ee kor saaran quotient ahana waxaan ka dhigaynaa horgale jawaabtaas inoo soo baxday ayaan waxaan ku muujinaynaa sabir ahaan markaan sabir diyaarinayno waxaan sameynaynaa iska inaad graph ama sabir isticmaasho ku qasban tahay oo ay u sameynaysa laba madax okay barta dhex waxa ka soo qaada meesha inay tahay kale 0 inay tahay ka soo qaata markaas waxa tirada laba dhinac maadaama tirada ugu badan meesha ay tahay 3 iska qoro waa ka badin kartaa hadda doonto laakiin qiyaastaas ay ku fiican tahay inaad tirada ilaa 3 dhankan 3 kala ka sameey marka intaas sameys kadib waxaan dhahayaa waxaan rabaa inaan ogaado hal waa iska ganqaana waa hal caadi hal hoos iyo 3 see loo sameeyaa waxa sameynaysaa horta hal dhibicdan ay bartan ay ku soo aadaysaa hal bartan ay ku soo aadi doontaa okay waa balas haduu meen sala dhan kale noqon lahaa hal hoos iyo 3 waxa lagu sameyn doonaa intaada laba gaarin ka hor waxaan rabaa waaxda labaad inta ka soo 3 qaanadood ka dhig sidii ugu dhigaysaa adoo laba xariijin ku darsanayo marka laba xariijin ku darsato halka waxa kaga soo baxda qaanada koowaad qaanada labaad qaanada saddexaad 3 qaanadood oo barta ka samaysatay ayaa waxaad ka qaadan doontaa hal qaanad ka qaado yani waxa loo jeedaa bartan tag waa pointiga wuxuu noqon doonaa marka barta ay dhacaysa markii graph ahaan loo daraaseeyo 1/3 waxay noqon doontaa hal oo wax yar lagu daray hal oo lagu daray 3 meelood meel bartaas ayaan dhacaysa jawaabtaadan halkaas ay ku idlaan doontaa waxay noqon doontaa 1/3 bartaas ay dhacaysa markii lagu dhaho ku muuji xariiqda dusheeda ku muuji lagu dhaho markii lagu dhahna halkaas aad heli kartaa hadii lacala as dhayso inta waxa ku qoran kartaa dad number oo qoran kartaa 1 kan wuxuu dhigmaa 2 kan wuxuu dhigmaa 3 oo plus kan waxa dhigi kartaa -1 kan waxa dhigi kartaa -2 kan waxa dhigi kartaa -3 laakiin inta badan waxa fiican inaad dusha ka taqaano aad fahmi karto ayaa aad u wanaagsan halka waxa uga bixinaa cashirkeeni labaad aan ku bixinay 3 example ee koobna hadii aad ay tahay marka ugu horeysay channelka soo booqatay fadlan subscribe saar gambalelkana furo like inoo saar si aad inoogu dhiirigeliso waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka Warsani Salaam.